بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصحابي صود وهذا قلبت وحنا إيدين هي 10 مهم أو كسابسن قيبها أفك الصومالية ميدا أفك الصومالية مهم كا وحال يراهدا أفمل ضح قيبتها أفك الصومالية أرضي وحال لغا يابا مركو امتحانك كجيرو إن لو ويديو صدح قاب أفك وح لوغا ويديو مر waxaa la oranayaa qaybaha waaweyn oo afka sheeg markaas oo kala tixi tiraab baa la oran karaa waxa dhici ka hadalka marka laga eego xagga marka la rabo in lagu hadlo oo kale in la yiraahdo markaasna wax ka sheeg oo uu yiraahdo malda iyo sanda waa marka xagga la joogo af maldaha marka hadalkiisa caadiga ah ee qof walba fahmi kara ahna waa marka maay iyo maxaa tiri la yiraahdo marka saddex qayb weeye moogta hadda galabta inagu marka waxaan rabnaa inaynu qaybta maldaha iyo sandaha aynu ka hadalno sandaha marka isagu waa wax caadi ah oo qof walba ay hadalkii markuu fahmi karo oo uusan cidna cid weydiinayno waxba aysan dabooleyn weey laakiin marka la yiraahdo maldaha waa afkii oo sogordaha ama sarbeeban oo aan qof walba ay marka fahmi karin qof marka ay dheergarada oo waxa weeye diilay inay keed leeyahay wax badan og maahe waa araga ma qof kale oo fahmi karin salahan marka waxa dhacda mararka qaarkood in aad reer miyiga israacdaan oo kale aad tiraahdo warniyo reerkii ma dhow yahay waxaan rabaa inaan reerka la soo joogo kadibna isaga oo hadalka ku door xulaya oo aan sida saxda ah kuugu sheegin meesha reerku yahay buu wax ku oranayaa reerkii waa hasha ilaalis ama reebel magaalo heblaayo intee bay magaalo heblaayo u jiidayo kala iyo salahan teesu jiraan markaasuu yiri waa ina maqlaysaa magaalo heblaayo waa ina maqlaysaa أنا بحال جوا لبضع سربيبات بمعنى ده وحويه ميل دوبا للتلمامي مرنا فرتا لجوج جودي وحلي وهالشيء للس مرنا وحلي يري وأنا مقلي ساعة معنى ده مركب وحويه إن لبضع بعيد وانش التلمامية مركا أرض ده مركا امتحان كوتشران أو أي كشقين يعني مادة ده في الصومالية وراه ده سوق كلا الله كينا وحلي هذا محيط هاي وشيء ده دحصون أو كوتشرتا وراه ده سوق سعودة إن galabta marka waxaan rabaa inaan dhowr tusaale na idin siiyo su'aalo badanna aan idin weydiiyo si aad asxaabay uga soo jawaabtaan tusaale waxa dhacday nin dhakhtar ah oo ragga reer Ingiriis ah oo afka Soomaaliga wax ku soo bartay ayaa wuxuu yimid dalka Soomaaliya isagu lafaha qofka xubnaha qofka wax walba waa soo diyaariyay qof wuxuu ahaa dhakhtar wuxuu ahaa buuxa marka waxa la yiri waa loo yimi waxa la yiri af Soomaaligan marka aad u aqaan buu waa dhameeyay waxa lima aadan dhameynaa afka kan umad baa iska leh oo ku hadashay iyaga leh oo ku hadlo sheegtaana ma yaqaanaane wuxuu waa af soo dhameysay macna waxbaan ka aqaanaa waa ka qaadan karnaa laakiin waa dhameynay nama marayso wixii idinku waxa doontaan ii keena taasoo tagtaan waxa doontaan ii keenay nimanka waa fakareen maama loo keenay waa yeel ah marka horena lala soo ballamay oo la yiraahdo ninka inaan naga celisid baan rabnaa afkii uu sheegtay maamadiyada ugu sheeday ku tukugaysa bay ilinka ka soo gashay ninkii dhakhtarka ahaa oo meeshii fadhiya waxay ku tiri waa soo tukubtay albaabka markay soo istaagtay oo ay u timi hooyada see lagu haya uu xog wareystay markaasay waxay tiri shib iska dhahdii buu barbaaray xubnihiisii buu ka fakaray waa garan waay wuxuu sir alla ilaahay taas garan maysid bal si warayso gartay eedo wuxuu yiri ka sii gudubo see kala lagu hayaa xaalkaagu seeyay markaasay waxay tiri waa la igu dhanyaayna waxay noqotay su'aal kale oo iyaduna xubin kale oo uu raadiyo oo jirkiisa kamid ah soo xanuunadii kamid oo garan waay halka markay marsiinaysay buu isdhiibay ninkii wixii ruuxba garan ma aanu raal lahaa maamadii baa uga jawaabtay waxay tiri eed waa la igu dhan yahay waxaan ka waday meelna iima fayooba meel ii fayoo ma jirto shib iska dhahna warba igama haysid way warba maada iga hayaba shib iska dhah iska aamusmaandhow warba igama haysid marka nin kale oo carab ah isaguna waxa la yiri luqadda carabigu aad u yaqaanayo afka Soomaaligu isaguna midna bartay dadku waxa moodaa xoogaa reer galbeedka ama luqadaha kale ee dadka kale oo dawladda waxa caalamka intooda kale ka mid ah inay afkeena xoogaa xagga barashadiisa inoo ka horeeya marka nin kale odaya wuxuu yiraahdaa anigu luqadda Soomaaliga aqaan
kadibna waxaa la yidhi wiil yaroo 6 jira baa loogu yeeray waxaa la yidhi warkaale ninkaan baan rabnaa inaynu soo afjarnay marka waxaa loo qabtay dhulkaa meel looga jeexay waxaa la yidhi waa tartamaysaa goortii markow 2 3 la yidhaahdo baa orodka bilaabaysaan kadibna waxa weeye haddii ilaahay idinkeeda leeyahay halkaasaan arkaynaa kii nibadiya marka sarbeeb baa lagula hadla goortii waqtigii dhammaaday 1 2 3 la yidhi baa la cagaha wax ka day ninkii wuxuu sameeyey cagihiisii uu fiirfiiriyey wiilkii yarka ahaana waa sii day waa tag kadibna wiilkii uu fiiriyey mise ma joogo saa waxaa meesha ku dhagaysiyo cagaha wax ka darsameynaa oradinku hawlahayd baa marka afka naqaana marka dhamayow afka Soomaaligu waxa weeye waa af waxa weeye ballaaran oo hodan ah inaga sarbeebihiisa marka ma rabno inaynu ku sii dheeraano tusaalayaasha laakiin waxaan rabaa inaad tusaalayaashan asaa ku qaadataan kadibna aad ka jawaabtaan idinkuna kuwan xaqiina kuwa xaqiina waa soo wadaa buugaaga ku qoro marka hore goorta qortid kadib jawaabtooda qor kadib wixii aad garan weydiisay soo gudbi waxay leedahay tan ugu horeysa lambar 1 haruubka lagu tabay labo waa la igu dhan yahay xeradiisa xoolo kuma jiraan waa dhaanteeyey laf cad buu toobin ku hayaa waa laga hufi karaa waa sida calaacashaas hargaha looma jajabiyo waa 5 qabo 5 siidaa saanta ayuu jiidayaa suxud saaxud laguma arko godkiisa biyo ugu galeen isugu heela dhawdeen birta calashaday xeero iyo fandhaal kala dhaceen ama xeer iyo qude kala dhaceen ishii aragtay bafdhe hal bacaad lagu lisay waa loo dheela dhaansaday hoos ka tuur bay leeyihiin aashuun bay ku adimayaan fuqba meel buu ku dhagay ishuu ka tuuray dibnaha ayuu qaniinay dhegba looma jalaqsiin waa lagu daadshay waa hasha ilalis cagaha wax ka day waa la baceeyay iyo dhabarka itus intaas baa ka soo jawaabaysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi